waxa uu guursaday isagoo ah atoore caan ah aadna u qurux badan hantidiisuna kor u dhaaftay $10 milyan. si kadis ayaa waxa uu ku galay shil ka dhigay baralays caajis ah oo aan waxba qabsan karin. ma rumaysan kartid waxa ay fashay xaaskiisu kadib markii uu galay shilkaas. bandhig masraxiyadeed uu ka qayb galay ayaa waxa indhihiisa soo jiitay gabar la yiraahdo Dana oo bandhigaas ka qayb galaysay aad ayuu uga helay. Chris waxa uu markaas ahaa jilaacaan ah kana mid ah ragga ugu qurxoon caalamka oo waxa uu horay u soo sameeyay filimaan guuleystay oo uu kamid ahaa filimka Superman. balse Dana waxay ahayd heesaayad iyo jilaayad ku cusub dhigida filimaanta oo waxay ahayd qof iska bilow ah. Chris aad ayay u soo jiidatay uga helay waxa uuna ka dalbaday inay ballan u wada baxaan ay soo sheekaystaan. balse Dana way diiday inay ka aqbasho kulankaas waayo waxay u maleynaysay inuu rabo inuu waqti isaga lumiyo oo kaliya. waxay u maleynaysay inuu yahay wiil ciyaar badan la kulankeedana uu ka rabo ciyaar oo kaliya sidaas ayay uga shakisanayd. iyadoo ka diiday la kulankiisa ayaa uu waxa uu ahaa mid aan isdhiibin oo mar walba ku celcelinaya in uu ka dalbado in ay la kulanto. dalabkiisii faraha badnaa markay dhibsatay ayaa waxay istiri bal hal mar iska aqbal jinna qaadkay oo la kulan. waxay ogaatay inuusan ahayn qof iska ciyaaraya oo ciyaar ka wada say u mareynaysay si aan ahayn ba u soo baxday. waxa uu sheegay inuu doonayo inuu nolosha la qaybsado oo iyada agteeda uu ku qaato inta ka dhiman noloshiisa oo guur ayuu ka aqoonsaday. wayna isguursadeen waxayna ku dhaarteen in moodku iyo dhimashadu kala kaxaysan maahan aysan kala tagin. guurkoodana wuxuu ahaa mid aad ay farxad uga buuxdo dadkuna waxay ku xasdi jireen jacaylkooda. Chris waxa uu wax walba u sameyn jiray sidii uu iyada u farxad gelin lahaa. markii uu ogaaday inay jeceshahay fardaha ayaa waxa uu go'aansaday inuu bartaba sida loo fuulo oo fardafuul inuu noqdo ayuu ku talagalay. muddo kadibna waxa uu noqday fardafuul xirfad u leh fardaha fuulnimada oo waxa uu ka qayb galay tartamada fardafuulada loo qabto. maalin ayuu tartan ka qayb galay ay daawanaysay xabiibtiisa Dana. si kadis ah ayuu faraskii uga dhacay madaxa ayuuna la hormaray oo madaxa ayuu dhulka ku dhufsaday. waxa uu galay koomo waxaana si degdeg ah loogu xawilay isbitaalkii ugu dhawaa. markaas ayaa dhaqaatiirtii waxay u sheegeen xaaskiisa warkii igu xumaa oo ay maqasho intii ay noolayd. waxay u sheegeen war aad u xun oo ah in ninkeedu uu galay xaalad baralays ah oo uu weligiis uusan dhaqdhaqaaq samayn doonin. markii uu soo kacay Chris ayaa waxa uu qaatay go'aan ummadii ka argagax galiyay. waxa uu ka dalbaday dhaqaatiirtii in ay noloshiisa soo gabagabeeyaan oo ay dilaan maadaama uusan rabin inuu noolaado isagoo baralays ah. isla waqtigaas xaaskiisa ayaa soo kala dhex gashay oo waxay tiri waxaan ka codsanayaa inaadan samayn ficilkaas. oo waxay ka codsatay waxay tiri waxaan ka codsanayaa inaad 2 sano kaliya ila joogtid kadibna aad noloshan isaga safartid. waa uu ka aqbalay Chris dalabkii xaaskiisa waxa uu go'aansaday inuu go'aankaas uu ka laabto. Dana waxay dareemaysay dambi waayo waxa ay sabab u ahayd inuu fardafuul noqdo ninkeedu. hal ilbirqsina Allah ka dhigay dhinaciisa kama aysan maqnaan intii uu la xanuunsanaa shalalka. waxay tiri waxa tahay ninkaygii wax kasta oo dhaca waana ku jeclahay weligay. maalin walba waxay safri jirtay 3 saacadood si ay isbitaalka ugu booqato. jilkiisa ayay masaajin jirtay si joogto ah iyadoo dhaqaatiirta loogu talagalay in uu masaajeeyaan ayay iyadu doorbiday. wuxuu dareemi jiray khajilaad fara badan markii ay dhaqaatiirtu u masaajeynayaan laakiin xaaskiisa waa uu ku kalsoonaa. waxay kaloo muhiimadda saari jirtay dawooyinka la siinayo iyada ayaana gacanteeda ku siin jirtay. markii ay ku tilmaameen saxaafaddu xaas baariyad ah oo daacad u ah odaygeeda oo aan la heli karin waxay ugu jawaabtay anigu ma ihi haweeney la yaab leh oo aan la heli karin waxaan ahay xaas jecel ninkeeda oo waajibkeedana ka soo baxaysa. iyadoo ay sabab u tahay xaaskiisu ayuu 10 sano oo dambe oo dhameystiran noolaa. rajo ayuu qabay uu mar uun ka bogsan doono xanuunkan baralayska ah ee ku habsaday. nasiib xumo sanadii 2004 ayuu wuxuu u geeriyooday wadna istaag. markan xanuunkani kama uusan badbaadin. maalintii xigtay ayay qoyskiisu cadeeyeen in uu geeriyooday. xaaskiisuna waxay gashay murugo aad u dheer oo murugo la dul saaray ah. waxay ka go'doontay caalamkii oo idil. xitaa waxay diiday inay gadaashiis jacayl ku dhaco ama ay nin kala guursato ilaa intii ay ka dhimanaysay. waxay geeriyootay 2 sano kadib dhimashadii ninkeeda sanadii 2006. waxaan ku dhaartay inaan weligay kula joogo waxa aan dhimasho ahayn aysan kala kaxayn. waan ka xumahay xitaa dhimashadu waan kala kaxayn weyday. intii uusan geeriyoon waxa uu xaaskiisa la asaasay urur khayri ah oo ka shaqeeya caawinta dadka baralayska qaba. ururkaasina ilaa maanta waa uu shaqeeyaa oo waxa uu caawiyaa kumanaan qof oo qaba baralays. jacaylkii weynaa ee ay isku qabeen Chris iyo Dana waxa uu rajo u noqday kumanaan qof. hal qof oo si dhab ah oo daacadnimo ah ku jecel ayaa ka fiican boqolaal munaafiqiin ah. si aan muuqaalo badan oo noocan oo kale ah idinku soo sameeyo ha ila dhaafin subscribe
like falowda iyo sharta waa Cabdullaahi Cabdikariin Khaliif oo idin leh nabad galiyo salaam markasta